لكن هدي الدراسة أو أد كفكرته إن الودن كاجو حقبته أو أد ودن يد موجسة أو حسوا كدسة أدقو شقيسته أو أد وحبرته وأد وحبرته ودن كان شقة تعالى ودن معدن يروحوا بوا كتيران وعلى شقيسان كرا وحقول سيدا لله عيد يبيع عرف تاجنتها وعيدي أو هذا بيه دردر هذي بس علنية مركز وحويد دل يردي بقى وحكوري وحويد قصة الفكر بقى كل عين وقتها معها مسكح دي بالله حس مسكح دي بالله وحيالك كلا باي وهم تاجر أنت ترى وحبي أركيان وعين كاستو مركا وحيابها سي ونحس ودن كيدو بويك عند سابين وقتها مركا دل يردا إله وحنا قبر يودن إله يتصو آمين إن شاء الله كل وإنه آمين تندرهنا إله أنا حيراق قبل ما دام أي تاي وحينو كهالنا ومديني أن افرح أود مغرسايو دلنيردي قسوة الفكري أما هديرنا في الصومالي كأنه دلنيردي مسكح لي بالله هيستايو عقلي إلا جه يستبد مودي سامركا كورها المركب محا لينا سا إن ودنيردي يسولش قاعد كان عصر كان عصبي دب كاسو حكينا أضياء دلنيرد معها وبدك مركب دشان هدي على قبل أبا إيه عقدة محي سماينا يعني قصبيا قفك مسكح يسوي يستبدلسا واقرتي كل عنا الغباء waxaa dhalinyarada aad bay u fiican tahay wayna isu tagaan inta nabadna way raadiyaan laakiin waxa ka soo horjeeda waa odayaasha ee markasta dibka Soomaaliya ka wada dhalinyaro maaha marka ay dayaguna wadaan caruur yihiin oo markay aqliga ka xadaan intay xabada qaataan ay dadkii kale la dagaalamayaan dhalinyaradana taasan ka waanin lahaa oo dhigla iska daaya marka aad leedahay aqliga odayada ka xaday hadda waxa laga yaabaa dabcan odayaal badan inay daawanayaan marka maxaad cadeyno wala wax bacdeen bay u baahan yaraan aad ku leedahay laga hadlo dibka maantan haysto odayaal un baan oo keenay waayo dhalinyaradu waxay sameeyay male sasan kulaan qabaan halkaas marka arrimahan inta badan markii aad tixaha ka tirinaysid kulay waad sheegtay waxa tiri waxa ku soo talagalay maanta inaan anigu dareenkayga aan suugaan ku gudbiyo marka bal maxaad mid kale ma haysaa aad sileedahay bal dhalinyarada yaama bulshooyinka Soomaaliyeed bal aynu dareenkooda ku dhaqaajino mid kale baa jirto aniga aan iskaga hadlayo oo aan Soomaaliya markaa ku saabsan waa adduunyadan garaanta adduunyadan garaanta qofba gow ka haysto geeskayga miyuu lamay magabraarataana hay guudrarta baasoo gagalaga hayaamiyo gaargo'an ku noolo ruux gowracan miyaanahay sidii gaban abaydina geeriyootay hooyadii gacal kalena aan hayaan gubanayaa gabal dhiciyo waa bari waxaan goobayaa qalbiguna u gudan yahay nafteeduna u kuuxdaa gayigaygii hooyo nabad lagu kaladayo go'aan adag la gaadho guddi loo xilsaaro dowlad adag la taagto calankii babanayo ما شاء الله halkaas ay kula martay dareenkaaga marka waxaad ku cabiraysay in waxaad u gooxaysaa haykal dawladnimo iyo nidaam dabcan dawladii hadda inay ka jirto dalkii way jirtaa haba iska tabar yaraato marka kulay ilaahay baynu waxaanu ka baryeynaa in gayigeena Soomaaliyeed oo dhan meel kasto ay Soomaali ku nooshahay in ilaahay barwaaqiyo bashbash uu halkaasi ugu geeyo meesha ay taagan yihiin Ali haddaan adiga ku soo noqdo wadaniyada waxa dabcan waxa filayaa waxyaalaha kor u qaada inaynu yarata taabanay bal waxa iyada ka warantaa waxyaalaha wadaniyada dila maxaa wadaniyada dila halkay wadaniyadu ku dhimataa wadaniyadu waxay ku dhimataa marka laga tago qofka wadaniga waxa wadaniyada waxyaabaha dilo waxa kamid ah qofku markuu dhaqankiisa markuu ka tago wadankiisa ilaashan waayo nadaafadiisa ilaashan waayo environmentigiisa iyo dabiicigiisa ilaashan waayo ugaadhiisa ilaashan waayo waxyaabahaas kale oo wadaniyada dilo waxa kamid ah qofku marka uu ay ka muuqan weydo inuu moogtahay qof de wadan ka yimi oo luqad iyo dhaqan leh oo mar hadda waxaad arkaysaa dhalinyaro ka faanaysta moogtahay ninkan waa qof cajiib Soomaaliga ma yaqaan moogtahay oo Ingiriisiga ku hadlaa Soomaaliga ku adag yahay walaa qof khatar weey moogtahay waagar marka waxyaabo daciifnimo away waxa soo kale qof waliba waxaan ku yiri marka nibaan maalin oo sheekay wuxuu yiri askartii Yunus amlagay xamad buu ahaa wuxuu nin jarmal waxaan ku yiri miyaad Ingiriisna ma ku hadashaa marka soo yiri miyaad arkaan calaamadeeda askari jarmal amaanaya markaas aan ku yiri waan arkayna jarmaltay markaas adiguna miyaad ahayn Soomaali markaas aan ku waan ah oo rida maxaa marka labadana midna British ma maxay noofka markaas aan ku waan international language markaas uu yiri waxa weyn nin adiga kula mid oo 9 bilood ku dhashay oo sidaada xiniyale ayaa shanta qaarado afkiisa inuu laga hadlo ka raralay sidaas oo kale ugu fikir buu yiri in shanta qaaradood Soomaali
lagaga hadlo intaad ila soo hortaagan tahay buu yidhi ingiriis lama ku hadashaa shafuroodna isma afkarin waayo afkaaga ku hadal afkayaan ku hadlayaa marka waxyaabaha wadaniyada dila waxa ka mid iyadoo laga faano qofka bilaanka wadankiisa ka faano inuu wadankiisa ku faani waayo afkiisii luqadiisii dhaqankiisii ma arkaysid marka dhalinyaro moogtahay marka dee ay dhaqanko moogtahay waxay qofka sida reer baadiya u labisan inaan ama saddex qeyd sidata ama inaan laba gooyo kaba wilba ninba raad waxa ku jirta wuxuu yidhi kaba faygamuun iyo raggu laba gooyo shaadh ayuu gooni u lahaa ma gashanid intoodii gadhna kaama soo bixin dumarkuna garaysiyo dumarkuna guntuuniya saddex xaqeed qaraysiyo googona dacwaysaa ayuu gooni u lahaa ma gashanid intoodii garaftiina kaa maqan geesaan ku mariyo gacanaan ku siiyaba dhukuray kumaan garan buu moogta gabadh buu garan waaya xalaala waxay tahay ma ninba ma naagba waryaanaayo waa maxay waxaan sida uu labisay kan la demaba garanayo waxaa tahay raggu saasuu ahaan jiro dumarkuna saasay ahaan jireen labadii midna ma tihin hada fahanti soomaalidu waxaa iska noqotay taqlidul acma imanka iskuulkaan ku dhigan jiraa laba dameeroo midna milix buu siday midna wuxuu siday furshaani marka ka milix wuu cuslaa dabadna ceel bay imaada kii milixda sidaa ceelkii galay milixdii baa ka milantay dabaddu isaga soo baxay isagoo ciyaaraya ilaa milixdii way ka milantay too tiri kii furaashada istira baa galayba way ku buuxsamay furaashadii baa ku buuxsamay marka wuu soo bixi waayey dee xaguu ka soo baxaya ninkan buu milixdii ka milantay buu isra waa kan dee ciyaaraya adiguna gal moogta qaabkaas bay imanka dhalinyaradii soomaaliyeed wax allaala wuxuu yahay oo diin qaab diinta ma lagaga baxaya muxuu yahay ayay iska geliyaan rafantay wadaniyadoodii ka fekeri maayaan ku faani maayaan waxyaabaha wadaniyadda dila waxa ka mid a iyadoo wadankii la aamini waayo oo qof waliba uu wadankii ka cararo oo uu fikirkiisu ay gasho ilaa aad yurub tagto rafantay waxa weeye waxba ma tihid mid baa baasaboorkan soomaaliga la qaatay mid baa saamkaas yiri bal ka waran bahalkaa yar baad horsa kii gorgorka lahaa maraykan hala fahantay haddaad tidata ka waran buu yidhi bahalkii baasaboor yaro soomaaliya carabi ku taalaad nala hortaagan tahay aan meel laga aqoonsanayna markaasuu kan aniga igala muhiimsan ninkiisita kan aniga igala muhiimsanoo igala qiimo badan marka inta badan dadku isku wara mid maaha dhalinyaro muwaadiniin ah oo si fiican u fekera oo cabqariyiin oo samac iyo basar leh oo si fiican wax u garanaya way jiraan laakiin majority baynu ka hadlaynaa intooda badan ayaynu ka hadlaynaa marka xataa waxaa diintii baa wax walba laga imanka dhalinyaro maalin meel fadhido waxay ka sheekeynayeen fabrikaas iyo rooni iyo waxyaabahaas oo dhan ayay ka sheekeynayeen oo waxay lahayn qaabka u labisto iyo waxyaabahu ka helo iyo favorite waxyaas ka sheekeynayeen ninba u yimi $100 buu saamiska u saaray wuxuu yidhi 10 saxaabiya jannada loogu bishaareeyey 10 mubashiriin bal sheegay buu yidhi waa ninkaas wuxuu yidhi waxaad xaadirnaysaan ciyaartooygaas nin walba xataa substitutionkii baad garanaysaan kuwii bijinka fadhiyey iyo magaranaysa hooyooyinka arabiga meel ku dhasheen saacad dhasheen 10 mubashiriinki bal sheega marka taasi runtii waa waxyaalaha inta badan hadda dhalinyarada Soomaaliyeed lagu dhaliilo oo waxaad moodaa inay wadaniyadii ay aad hoos ugu sii quusayso waad ku mahadsantahay sidaad noogu sharaxday waxyaabaha macnaha adiga fikirkaaga aad ku cabirtay inay wadaniyada dilaan oo ay hoos u dhigaan ifrax adiga intaan ku soo noqon su'aal baan rabaa inaan halkaa ka weydiiyo daawadayaal waxaa jirtay iyaduna barnaamijkan intii aanu aruurintiisa ku jirnay waxaanu mikrofoonka la dhex qaadnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyaguna bal si ay nooga tarjumaan ama ay ka bixiyaan dareenkooda ku aadan ereyga ah waa kuma wadani iyo dhalinyarada iyo wadaniyadu heerka ay kala joogaan bal ila daawada dhalinyaradaas oo dareenkooda cabiraya bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la Ibraan Cabdi Abshir wadani anigu hadda uma jeedo mana arag waayahan dambe ilaa iyo si qarankii Soomaaliya u burburay wax wadan yahay ma arag dhalinyaradu wadaniga lagu tilmaami lahaa waxaan umaleeyahay hadda Yurub iyo Mareykan baa wadadan u horeeyay wadankooda rabin baa ka muuqata marka 13 wiil oo Aswaal wax ka dambeeyay wadaniga ma malnay dalka inuu soo maray dhalinyarada haatan joogta Soomaaliyeed ka soo aad hadda hadal ku turtay ka waran iyaga iyo wadaniyada heerka kala marayaan aad bay u kala fog yihiin maxaa yeelay dhalinyarada laga rabay wadankooda ka fakaraan waxay ka fakaraan Manchester United iyo wax la yiraahdo Arsenal iyo waxyaalaha noocaas ay ka fakaraan iyo si Mareykan lagu tagi lahaa ama Canada lagu tagi lahaa ama Yurub lagu tagi lahaa taasina ma macnaha ma masaabaxayso ummadda Soomaaliyeed waxna u noqon mayso dhalinyaraduna kama fakareen wadankooda dib u dhiskiisa iyo dib u dejintiisa iyo nabadiisa iyo maaragtay barnaamijkiisa nololeed kama ay fakareen runtii ma aqaan dalka cid kale ilaahay waxaan u baryaynaa in wadanimada ilaahay nagu soo celiyo ilaahay waxa weeye shacabka Soomaaliyeed maslaxad ka qabta dhex dhigo waxa kullu wax laga sugayo odayaasha maahna waa dhalinyarada jiilka anigu hadda ugu weynaan dhalinyarada xisaabsan ay weli rama yeelanay
aniga intaan ugu weynahay way inta laga rabo inay wadanka dib u dhiskiisa iyo dib u dejintiisa iyo wadannimadiisa ay muujiyaan marka taa ilaahay baan ka baryeena aad baa u mahadsan tahay magacaygu cali abraan cabdikariim xasan gablax waxaan deganahay islii dhalinyaro islii baan ka mid ahayaan wadani waxaa la oran karaa inkastoo hadda aysan jirin hal qof baa wadani la oran karaa saddex waxyaaloodna markuu la yimaado wadani noqon karaa waa qofka naftiisa maalkiisa iyo cilmiga uu bartay wadankiisa u hura baa wadani noqon karaa oo ilaaliya sharafta wadankiisu leeyahay si raggii horey noo soo maray oo raggii hadda xalaalay ay ka mid ah tusaale ahaan soo qaato oo calankooda badbaadinaya ku dhintay oo kaleeto waa wadani la oran karaa haatan wadaniyadii dhalinyaradu way jeceshahay oo in ay hesho ama ay aragto laakiin micnihii ay kula jaan qaadi lahayn weli ma fahamsana waa mahadsantahay ka waran marka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo wadaninimadu maanta heerkee ayay kala taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed iyo wadaniyadu waxay kala taagan yihiin heer aad u kala fog hadii la fiirsho bay kala taagan yihiin heerkaas oo ah dhalinyaradu ma aysan arag inta anigu da'da ah wax ay tahay wadaniyad iyo dawlad iyo sharci iyo kala dambeyn ma arag waxay u garaadsadeen burbur iyo xabad iyo dagaal iyo dhac ugu garaadsanay iyadoo wadaniyada ay jecel yihiin oo ay rabaan inay wadaniyad iyo xor ay ku noolaadaan baysan fahansanay qaabkii la jaan qaadi lahaayeen aad baa u mahadsan tahay walaal adoo magacaaga meesha degan tahay ku bilaabaya waa kuma wadani aniga waxa la yiraahdaa Star Sheikh Xasan Maxamuud waxaan deganahay Jam Street wadani aniga inkastoo aanan maanta qiyaasi karin fikradiinteeda laakiin wadani waxa iskaga macnayn lahaa sababtoo ah ma arkin qof wadani ah marka jiilka maanta aniga aan ku jiray ma aysan arkin qof wadani maanta oo Soomaaliya marka aniga waxaan ku macnayn lahaa qofka naftiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa iyo wadanimada dadkiisa u dagaalamo asoo ka fiirinay qabiil iyo macnaha waxyaabo kale oo ka fiirinayo diinta islaamka aniga dhaqankeena diinta islaamku asquseen